kulanti wanaagsan daawadayaal waa dhuuxa wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka Soomaaliya oo soo afjaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli mucaaradku ay galka doorashada gacanta u galiyeen wakiilada beesha caalamka haddaba waxa la wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo looga yeerayo gudaha xalane si loo hordhigo in doorashada ay soo diyaariyeen mucaaradka Soomaaliya uu ugu qabto muddo 3 bil gudahood faafayn ayaan idinkaga helnaa qorshaha cajiibka ee la soo bixin xoogaga mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararkeena ayaa ku daawo doontaan qodobada kale waxa ka mid noqon doono faafaynadii ugu dambeeyay madaxweynaha Galmudug Qorqor oo la soo baxay qorshe siyaasadeed oo lama filaan ku noqday filla Soomaaliya haddaba maxaa ka jira in Qorqor uu iska diiday heshiiskii uu soo bandhigtay filla Soomaaliya damacsan yahayna inuu diyaariyo qorshe weyn oo markaasi looga soo horjeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo dhinaca kale isaguna uu saldhig kaga dhigan doono magaalada Cadaado halkaasi oo uu madaxweyne Qorqor damacsan yahay in uu dhinaca kale ku qabto doorasho uu ka soo horjeedo midda madaxweyne Xasan Sheekh uu diyaarinayo faafayntii ugu dambeysay ayaan idin la wadaagi doonaa qorshaha la yaab kale Qorqor uu la soo baxay ee dhabarjabka ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale wararkeena waxa ku daawo doontaan Puntland oo awood uga hortagtay ciidanka tirabeelka ee dawladda Soomaaliya ku daadgureynayso duleedka magaalada Garowe kuwaas oo la doonayo in lagu qabsado magaalada Garowe isla markaasina lagu inqilaabo maamulka Saciid Deni haddaba awaamir culus oo ka soo baxday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo ku wajahan ciidankaas ayuu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa wararkeena iyo kuwa kale oo xasaasi ah barnaamijkeena qayb ka noqon doona soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaawno wararkeena siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa filla Soomaaliya madaxweynaha madaxleedka ka dhamaaday ku jira u diyaariyay qorshe la yaab leh iyaga oo qorshahaasina gacanta u galiyay saaxiibada taageero Soomaaliya sida safiirada dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka iyo sidoo kale dawladda wadanka Turkiga waana ajando doorasho oo ay mucaaradku diyaariyeen taasi oo laga doonayo in Xasan Sheekh uu ku qabto muddo 3 bilood ah iyada oo aan laga ogolanaynin in uu isaga oo sharciyadii ka dhamaatay uu isaga jiro filla Soomaaliya mucaaradka ayaa ku wareejiyay beesha caalamka doorasho toos ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si toos ah u dooranayaan xildhibaanada iyada oo dhinaca kale tan la sugayo nidaamka 4.5 oo la ilaalinayo awood qaybsiga beelaha ee labada aqal hanaanka xisbiyada iyadoo dhinaca kale meesha markaasi lagu muujinayo in dalka aanay ka jirin xisbiyo qaran waxa uu Xasan Sheekhna uu wada ay tahay wax qariska xornimo sida xubnaha mucaaradku ay la wadaageen wakiilada beesha caalamka haddaba waxa ay dadku isweydiinayaan sideeba loo maamulaya doorashadan ay mucaaradku soo bandhigeen sideese dadku u codeynayaan haddaba doorashadu sida qorshuhu yahay waxa dalka oo dhan ay ka dhacaysaa hal maalin waa midda ay mucaaradku soo diyaariyeen oo ay gacanta u galiyeen beesha caalamka warqad ayaana lagu codeyn doonaa oo ma jiri doono nidaamka systemka ah guddi ayaa la sameyn doonaa kaasi oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo la isku raacsan yahay deegaaminta iyo fulinta marka la eego qaabka doorashada sida qorshuhu yahay waxa lagu tijaabin doonaa Galmudug iyo Hirshabelle muddada fulintana waa 3 ilaa 6 bilood gudahood oo loo qaban doono Xasan Sheekh muddadaasi wakiilada beesha caalamka ayaa doorashadan lagu wareejiyay iyagoo laga doonayo in degdeg markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu yeeraan si uu doorashadan u qabto mucaaradka ayaana soo diyaariyay tani ayaa ka dhigan in mucaaradka Soomaaliya ay soo afjareen doodii dheereed ee madaxweyne Xasan Sheekh oo uu kaligiis ugu dhagnaa dalka doorasho qof iyo cod ayaan ka qaban doonaa iyada oo dhinaca kale ta mucaaradka ay u arkeen diidmo walba oo ay diidaan doorashada qof iyo codka in uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dhigan karo waqti dheereysi geesta kale tan daawadayaal hadii aanu fiirno wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb waxay ku waramayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu ganafka ku dhuftay wadahadalada ay dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysay in ay kaga saarto maamulka Galmudug oo uu isaga tago xukunka maamulkaas waxaana xogaha halkaasi laga helay ku waramayaan in shirar dhacay oo dhaxmaray madaxweyne Qorqor iyo sidoo kale taliyaha Samaha Salaad oo dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh ka socdo in lagu kala tagay iyadoo wax heshiis ah aan la gaarin xogaha ayaa ku waramaya in Qorqor uu ku adkaystay in qoray caaradiis looga saari karin Galmudug sidoo kale tan uusan sharafkiisa gadaninin oo dhaqaalaha ay filla Soomaaliya u bandhigtay uu iska diiday haddaba xoguhu waxay ku waramayaan in Qorqor uu miiska soo saaray hal qodob kaasi oo ku waramaya in kaliya kaasi oo
kaasi oo ah in kaliya oo sheegaya in kaliya meesha uu kaga tagi karo ama xukunka galmudug uu kaga tagi karo iyada oo la qabto doorasho daafuraan isaguna uu tartamo xitaa haddii loo diido xisbiga Xasan Sheekh in uu ka tartamo xisbiyada kale ee dalka ka jira inuu ka tartami doono ayaa uu qorqor soo jeediyay tani oo dharbaaxo iyo dhabarjabin kulul ku noqotay filla Soomaaliya talaabada uu qaaday madaxweyne qorqor ayaa inuu ku adkaystay inuu diido heshiis la doonayo in isaga si boorsooyinkiisa uu kaga qaato magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale tana Puntland waxa ay qaaday talaabo culus oo ka dhan ah ciidamada tirbeelka ee ay dawladdu ku daadgureynayso magaalada Garowe iyo duleedkeeda halkaasi oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay inay yihiin ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa bixiyay amar kama dambeys ah oo lagu soo afjaray ciidankaas oo madaxweyne Deni ku tilmaamay inay yihiin kuwa maleeshiyada hay'adaha amniga ee heer gobol ee Puntland ayaa heegan buuxa la geliyay iyadoo Puntland ay qorsheysay in lagu qaado dagaal military oo ciidankaasi lagu soo afjarayo iyada oo markaasi maamulkana meesha ka jira uu noqonayo mid ay gacan ku haynta guud ee magaalada iyo sidoo kale deegaanada hoostaga iyada oo madaxweyne Deni uu wacd ku maray in inta laga gaarayo heshiis buuxa oo laga heshiiyo hanaan dhismeedka ciidan qaran oo heshiis lagu yahay in Puntland aan lagu abuuri karin maleeshiyaad oo kooxaha Xasan Sheekh dhaqaale ka soo qaatay uusan ka aqbali doonin midaasi ciidanka iyo saraakiisha qaarkood arintan la faray ayaa fariintan la wadaagay saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan booliiska iyo militariga ciidamada gaarka ah ee Puntland